إلى ما الله سبحانه وتعالى طبعا أنت وحوي ومالين مذوب السوبان الوطني إذا سادي مالين مرجوي nimanka halka fadhiya guurta la baxay ma kuwa gunta la baxay waa gun been weernaay maanta Soomaali way dileen iyagu waxay isleeyihiin dad u idinku nasteexaysta baarlamaanka u nasteexaya dawladda u nasteexaya laakiin qaranka way dileen waxa weeye ko guurtu markeeda hore bila sharci baa baarlamaanka bila sharci ku fadhiya 5 sanadood أنا إن بدنا واشي وحين لبضع قلة لبضوا حرام بيكون فديان وحين صوص هرانا ما ها واحد دعنا جري كرا وقتي إنه لبض شربان وقتي نقول تدا لبض شربان وقتي مروح عن كوكو بنينا إنترنت كوميش كسميين إنه يقالان ذلك أطران هريرة وحين نجد شوان وشجني markii dambe compromise baan galnay waxaan ka hadalnaa waa loo gobol badiyay waxaan nilay baashan seen dhaaf 2016 November baan seen maanta waa aragtay waxa ka soo baxay taas waxay si cad inuu sheegaysaa in odayaasha iyo caruurta meelaha aabiyoosu ka dhaxlay ibra sharciga ku yimi إن الدن يدد يدنا ودنا الدن تلك الفكرية هذا أنا قال وحوي أنا كذي شيء ناس يوم شرط شيء إرجعني يوم شيء جوابي يوم شيء ثلاثة يوم شيء هدي على نقول ديري وحنكون صنعنا نقطة وقت يكمشنا صدق حسبنا مركز إندستري ما ترى وحلا تعالى أولش الشرعي ولي حيستا وحوي مدحوينها أحمد محمد سيراي إلا بشيء اللي حلوة تكتشون والشرعي حدو الصوت ساري وايو إصلاح عاوة وبريتو إنو إيمانيان وفتقي يوروب كالسعودي مدحوينه هي دكرتا صوت ساري وكو صوت ساري وارتكو الدادي فيو وحا قورتو صوت سارتي بلا شرعي وكو صوت ساري وايو وقتي لقبتين يكمشو قبتين waxaa ka noo cadaanaysa inaanay dawladina aan shaqeynay marka hadii executive uu noqday waxaan shaqeynay baarlamaankii dadku soo doortay waqtigiisa ka dhaco yahay faalso guurtiisa 23 sano fadhido oo iyadoo aan sharci ahayn waxa dadka la kulmaan in la isku yimaado wada shaqaran la isku yimaado si dawlad dadka badbaadisa oo shaqeysa loo dhiso دولتنا waxay wayagtahay in dawlad dalkan iska daa sanad iyo 10 bilood 6 bilood ma wadi karto dalku kala daatay wala aragtay hareerta waxay naga jira wala aragtay shalay tabuurin waxba ka dhacay dad baa lagu dhaawacay wala aragtay ma jeerteenkii waxa la yiri tuwaraq bay keenan 3 technical keenan tuwaraq ma jeerteenkii shil waxa socda daarood oo gaalka ay ka socda oo abdul ku baaqay USB ba ka samaysatay xamar daweyno hareeraysanay marka waxaan u fadhiinaa hadana shacabka reer Soomaaliya dad aan dalka lahayn oo kiishista dad hoosta ka dalooda ashasho si qaadanay waxaan sheegnaa waxa meesha ka xunta way shacbi baan jiray shacab ku nool mijin jaada maxamed xajara ilaahu naxariistaa wuxuu berigi meedku soo baxay buu yiri mijin jaada lagu diiday dadka arunti mijin jaada soo bisaas jiray war umad darag adag jira oo maxaan maanta cuntaa qaad siisataa ay dadka caruurtoodii dadka dalkooda ka weyntii umad ma سنة دي برضه كل واقعي ورشيد ورتشقاران سكون ماد ورتلا ما هيسنا ورستراتيجيات ما هيسنا ولا نقول مقيم طبعا وضمان صومر وان وجهي مدحوينها وحيالها انو خريسان سنت لينو قوسيو برنامج لا نسوق لا كسو قادمت ما تتبع هذا waxa weeye hadii ay maanta uu madaxweynuhu digreed soo saar waay
hadduu wadatashi qaran isku yeeri waayo wadatashi shirbeeleed baa loo yeedhaya shirbeeleedkii Soomaaliya lagu aasaasay ee booramo oo kala sameeyay beelaha isku yeeray mar haddaan asxaabtana ay fadhiidoobay oo qabaa'il qaarkood noqdeen waxa loo baahay markaan dalka la badbaadiyo maanta doorasho iyo nin madaxweyne oo watay ma taagna badbaado qaran baa loo baahay dowladda naga saari karta maaha waqtigan hadda aynu ku jirno iyo cadowga isugu aloosan yahay iyo mabalaashiishka lagu hayo in Soomaaliya burburiyo dowladda naga saaraysa maaha marka waxaan leenahay mowqif cid waxa weeye madaxweynaha ay ku bedela taala xaqiisay taala anaga odayaasha maanu dooran oo iska dhaxleen ardayadii bariga hore soo doortay mar daba laguma soo celin iyaga isbuqra wax agtay ka yimid jirto baarlamaanka saas way Cabdiraxmaan waxaan leeyahay da ka bax taariikhda lama arag speaker gudoomiye xusbi oo speaker waxa weeye ninka gudoomiyaha waa dhexdhexaad taana markii aan ka dhignay nin waa ucid baa leeyahay magacuun baa heeday xusbiga waxba mu tiri jiray wuxuu ahaa nin dhexdhexaad oo sheerkanay laakiin gola wiili waa xaraan inaan dhax fadhiya dawaac dawladdu ka mid yahay haddana mudaharaad baan ku dhigayana dawaac wax la arkay ma waxa dawladda lagu dhigay dawladda aad ka maqan tahay ee xubin ka ahayn isagii baa jeerkii baarlamaanka kuwii kordhiya kuwii xeerka sameyn waaya kuwii sama qaybsa sameyn waaya hawsha maanta lagu marmarsoonaya waa baa ku madaxaya laakiin waxaan ahay mucaarad gudoomiye baarlamaan waan ahay taariikhda meel ku jirta ma jirto marka waxa weeye dalkani nin kasta dantiisu wata aniguna shirbeelaadkaas haddii la qaban waayo oo ninkaas dikar soo saari waayo siyaasadda Soomaaliya waan ka baxayaa ma joogiyo meel aan waxba ka soo socono doolkii carruurta been loo sheegayo oo cidna ka dhaxayn oo laga siibsanya daara laga dhisanayo oo laga sameeyay laankurusa $7,000 hindidu wadda inta aragtay waa wasiirada waxay ka haystaan Jabuutigaasi baawarka wasiirku $30 kama badna xeer baa jira 8 baa la siisanay ka Jabuuti biyama bixiyaan darur layr ma bixiyaan caafimaad ma bixiyaan wadda ma bixiyaan daruuriyaadka basic service ma bixisa dowladda Soomaaliya askarkiina $10 buu qaata $100 buu qaata saddexan goob marka la isku celceliyo mushaharkoodu waxay noo dhislaayeen 15,000 ciidamo ay bilcaalka sameeyeen guurta maxay noo qabataa maalinta la yiraahdo doorasho jirta kordhis baan maqalaa $2,000 bay qaataan wakiiladu maxay qabtaan 5 sano waxaan deeyahay si qaadano sanadna ala noo soo qadimo yani waxaan uga yaqsi maxaa waxa soo dhacayaan executive kii manifesto hen haduu madax aan weel ahaan oo agfahan oo dhulka jirkood oo baabay halka ka dhiman waa executive hada waxa weeye mar haddii halka soo gaadhay marka halka soo dhaadhay oo de aan dalkii loo turin ya maxaa la noo qoran maxaa cashuurta loo bixinaya maxaa nidaamkii uu burburaya markaana waxaan leenahay madaxweynuhu dadku adigu ku doorteen adaanu ku endorse gareynay anaga odayaasha madana qaano maanu dooran wuxuu halka ku turo tala liid gare umada liid gare بريت أنت أنا نوع من أجنبي هسي وأنا دخلت صوصارت الدوام استح هديك لو حويه كرسي جالس لحياة تقول ضمانية شرعيا هذا ضمان نجمة حكت دولة بانوس ميسان دولة بانوس ميسان دت كيف بتبادسه مرد بحث ونقول إيه معي ما أنا حمر النوجس وهنشبه ما أنا جرو ولا نوجس شراء ما أنا قالك عن نوجس شراء وحويه أنا قال أنا جارك وحلا جارك هو جان كان يدور حمانتي على جارك لأنه قوم سود 20 ما قول ريال تشوي والله يعني أنت أنا من شيء عالم كنت هاي نشيل بخاطري ما أنت تسوق رقبة سطحي أفرط إذا لكان صدق حكومة على نو كاني شريت واشتري واحد أجروا ألقي يا أمازون هذا اللي وصل على طبعا هو حملان هاي عروتي بتبادين عروتي أجونتي عروتي كي تجين أيون بتبادين
dalkana waxa weeye waa loo tashanaya waa la wada leeyahay hoggaan bas 5 sano lagu doorto 5 sano way ka dhamaanaysaa 26 Juun waanu tashanayna lama kala xigo kursiga 26 ka dhamaad bal wakaas xaaji cabdi ku soo celiyo 26 bacda salaam ku soo celiyo waqti inda ku soo celiyo shacbiga ku saaray shacbiga oo ka qaaday ana abaabuliya ana hargeysa ka abaabuliya shir beelad bay nootay shir qaban waayeen reer hargeysa dalkeena waan badbaadinna. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.